doodayda waxaan rabaa inaan ka bilaabo qodobka 25aad mudane gudoomiye qodobka 25aad waxa uu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo biyo nadiif ah oo uu cabo biyo nadiif ah oo uu cabo kaliya haddii lagu koobo waxaad moodaa inay khalad tahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay biyo nadiif ah noloshuna cabitaan kaliya biyaha looma isticmaalo biyo nadiif ah oo uu cabo rabaa biyo nadiif ah oo uu ku weysaysto ku qabaysto ayuu u baahan yahay marka in lagu koobo biyo nadiif ah oo uu cabo kaliya inaysan sax ahayn baan qabaa mudanayaal buuq badan baa jira idinkoo maasa xildhibaanada taagan ha fadhiistaan fadlan qodobkaas intaasaan uga baxayaa qodobka 27 faqradiisa labaad aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa isbeddelka ay ku sameeyeen guddiga qodobkaas xildhibaan cabdullaahi saako meesha baarlamaan uma ekade waa dhaqankii baarlamaanka saaka waa ka baxnay aan isla sheekaysanay saaka tahay baan malaynaya aan wada sheekaysano madaxa gudoomiye qodobka 27 faqradiisa labaad ee ah ereyga caruur ee qodobkan ku xusan waxaa loola jeedaa qof kasta oo ka yar da'da qaangaarnimada ee 15 sano sida ay guddiga u qoreen ayaan u arkaa inay sida saxda tahay da'da qaangaarnimadana inay tahay 15 sano qaangaarnimada wax lagu cayaari karo ama inaba ha yaraatee ma ahan sababtoo ah waa meesha ay ka bilaabato xuquuqda iyo waajibaadku labaduba waxaan ka hadlayno qofka markuu qaangaar noqdo xuquuq iyo waajibaad mid ilaahay ku leeyahay iyo mid dadka ku leeyahay mid dalka ku leeyahay wuxuu dhan baa fuulayo weliba guddigu waxay ku fiican yihiin inay soo qoreen oo kale ay ku dareen 18 sano wixii loo gaaranayo u aqoonsadaan da'da rushdiga waxay ku magacaabeen oo culimmada iyo kala tashteen arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye aayadda qur-aankana waxay leedahay wabtalul yataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum labadaba waa sheegtay qaangaarka culimmada islaamka iyo fiqiga markaad fiirisidna 15 bay u badan yihiin qolo marka annagu fiqiganaga hadda aan leenahay dastuurka ha lagu qoro oo islaam sunni shaafici aan leenahayna waxa weeye 15 sano qabaa sida fiqiga wadanka uu qabo iyo sida dhaqanka iyo curfiga uu yahay iyo sida guddiga ay soo qoreen waa iswaafaqayaa qodobkan waxaan qabaa anigu sidaa in loo daayo 15 sano inuu yahay qaangaarka qodobka 28 waxbarashada sidaad u soo qorteen waa wacan tahay waana wanaagsan tahay laakiin waxaan isleeyahay waxaa muhiim ahayd halkan in lagu daro qodob aad iyo aad muhiim u ah oo ah waxbarashada dadka reer guuraaga ah waa in halkan waajib looga dhigaa dawladdu inay u samayso markay ugu yar tahay maxwal ummiya waxa la yidhaahdo qofka inuu waxna akhrin karo waxna qori karo in loo sameeyo oo dawladdu ay middaasi lagu waajib yeelo oo ay dowrka iyada ay qaadataa qodobka 29 qodobkaasi faqradiisa saddexaad hay-adaha dawladda ee ku shaqada leh waa inay horumariyaan dhowraariyaan luqad soomaaliya inaysan ahayn baan filayaa laakiin waxaa laga yaabaa in qoraalka uu khaldamay haddii dee luqawiyiinta iyo dadkiina waa joogaan iyo dadkii ku xeldheera laakiin halkan waxaan u malayn inuu khalad madbaciya inuu yahay
اللغة الصومالية عن لقرين خلط مطبعي هدوية هنا إلا الصحو أيام قبا لغن سيقوني إيو قلق قوني سيقوني إلا الشيغان عليه ما قبو أما أفقريها هذا أما دقن هوسادها هذا لغن كمربى هدو ودن كدغن كجرة ويهي أما وقويها كجرة أما كوفرها كجرة أما الديغان كلها كجرة لغن صومالي لا هي إلا اعتباره الله قاته سيقون دغن كاسي إلا هرمريه الله احترامنا إنه يتهي إلا أركو إنت أسنكسو قبل يا ما سنتي